waxay qaybtii koowaad ee sheekadu inoo joogtay xaaskii qaasin xalime xaaji xuseen oo hurdo ladi weyday indhaheeduna baalasha isgelin waayeen waxay la tiiraanyaysan tahay xaaladda odaygeedii la qafaashay iyo xallinta umuuraha uu aabbaha u ahaa waxay soo jeeddaba kolkan waxaa la gaaray ooggii waaberi ilmahay dabka biyo u saartay caleen u badan maxaa yeelay saakin sokortu waa far iyo suul intay u qadcaqadcaysay ayay ku tidhi hooyo aabbihii waa la qafaashaye bal u soo duceeya waxay xoola ka shinsanayaani waa 18 aricada 15 waaweyn ah iyo 3 guri jooga waxay kaloo shinsanayaani qaalinkan yar ay dhaansadaan ee hooyadii abaarta horraanteedii ay tawaftay dhanka kale ninkii qaasin ahaa isla maalinkiiba waa la soo kaxeeyey waxay soo carraabaan caawana soo guureeyaanba waxaa waagu ugu baryey magaaladii gaalkacyo ahayd waxaad u mooddaa asaga iyo xaaskiisa inay 2 waa oo cusubay u kala baryeen waxaa loo dhiibay koob shaaxoho kulul iyo xabad bura gacan aan tabar badnayn ayuu ku qabtay kolkii uu dhammaystay ayuu isku dayey mar kale inuu ku qanciyo saraakiisha inuu ka yimid dad marras ah oo asagu u xoog wahaa ha yeeshee cidii dheg jalaq umaysiinin waxay cagta soo saareen waddada laamiga ah ee isku xirta gaalkacyo iyo muqdisho kolkay cabbaar soo hayeen ayay dhanka xuduudka uga degeen waxay sii socdaanba waxay gaareen kol ay galabgaab tahay dhufayska ciidanka qaasin ma aha nin weligiis garabkiisa qori geliyey iska daa inuu xabad ridee galabtiise waa galabkii ugu horreeyey ee qori loo dhiibayo waxaa la leeyahay sidaana xabadda loo raaciyaa sidaana wax loo liif saaraa gacmo aan tabar badnayn ayuu sidaa ugu qabtay isagoo leh waxay qasbayaan qalfoof maranoo qalbiga maqan baan isa qaybsamahayn miyaan qori ridii sideen u qabtaa bal ii sheeg qaabkusuu yahay halkaa haynoo joogto qaybta labaad ee qisada show turaala yaraa waa inoo qaybta xigta haddii eebbaha weyne uu ralli ka noqdo